mid ka mid ah beelaha dega Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka siyaasadda cusub ee dalka saamiga ay ku leeyihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo arrimo kale oo muhiim ah. Suldaan Maxamed Suldaan Muuse oo ah suldaanka guud ee beesha ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay go'aanka ay ka qaadatay beeshiisu ee ku aadan xulidda baarlamaanka dawladda dhexe ee Soomaaliya kuwaas oo ay doorteen in dhammaan xubnaha ay ku leeyihiin dawladda dhexe ee Soomaaliya in Jubbaland laga soo xulo. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa doodiina faraha badneed ee maalmaha socotay ee ahayd in aad ka dhigataan dogasha beesha sheekhalad ay leedahay dhamaanteed in aad ka dhigataan jubbooyinka aad ayaan u soo dhaweynay aniga iyo inta kale ee salaadiinta ay qosayso arintaas. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha aad ka gaarteen soo dhaweynta kelmadahaas iyaga ah beesha sheekhalad oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa go'aamo fara badan oo ka soo baxay madasha oo sheegay in dib lagu soo celin doono insha Allah taala beesha gobolada ay degtay ugu faraha badanta oo ah jubbooyinka. kulanka maanta wuxuu nagu aadeeyahay saan uga tashan lahayn masiirkanaga iyo ayahanaga nooc walba ay tahayba haday ahaan leedahay arrimaha kale ee qosay beesha iyo arrimaha kale dawliga intaba iyo talada oo noo soo jeediyay jubbooyinka beelaha sheekhaal meesha uu cudud badan waayay meesha degihi waay dhammaan 18 gobol Soomaaliya ka kooban tahay sheekhaal waa degan tahay cududayna iyo magagayna wuxuu ku saabsiin jubbooyinka kuraasta beesha ay leedahay sida oo noo sheegay suldaankii waftigiisa Kismaayo taala horena aan u ogeyn una go'aansanay haddana aan rajeeyayno dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan u sheegaynaa abi hore ee u sheegtay qabiil kasto meesha oo rabo aba meeshu degan yahay ayaa taala kuraastiisa cududana ku leedahay in kuraasta beesha sheekhalad la keeno gobolada jubbooyinka ee Soomaaliyeed. waxaan shalay xildhibaan Khadiija Aadan Cabdi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa sheegtay in dhammaan beesho ay isku raacday in xildhibaanada uga qayb galaya dawladda dhexe ee Soomaaliya in dhamaantood laga soo xulay Jubbaland. waxaan degnaa raas Kamboni to raas Casayr meel walba waan degnaa laakiin waxaan ku xoog badannahay oo beesha majority ahaan u degan tahay Jubbaland maadaama ay u badan tahay waxa la isla raacay suldaanadu isla raaceen aqoonyahanku isla raacay haweenka ururada bulshada isla raaceen meel walba oo ummadeenu ay joogto in la keeno gogasha ama se iisha kuraasta federaalka looga qayb galayo Jubbaland. marna waan codsanayaa marna waan ku adkaynayaa madasha wada tashiga iyo dawladda federaaliga annaga iskala masiirkeena waxaan ku adkaynayaa oo codsi ah in lagu soo celiyo kuraasta beesha sheekhaaleed Jubbaland. ninka raas Kamboni joogay ka raas Casayr jooga Jubbaland ha ku tartamo waa ku sabood gareynana waa ku soo dhaweynayna. Mas'uud Cabdullaahi Aadan Jubbaland TV magaalada Kismaayo.